qodobada ugu waaweyn barnaamijkeena habeenimo waxaa kamida wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka dhacay magaalada Muqdisho saameynta magaalada uu ku yeeshay iyo sida xaaladda hadda ay tahay ayaanu barnaamijkeedu ku haynaa iyadoo muuqaal iyo warbixin xambaarsan qodobada sidoo kale aanu barnaamijkeedu ku haynayna waxaa kamida Donald Trump ayaa maanta ka dhawaajiyay hadal si weyn warbaahinta Mareykanka iyo caalamka u qabsaday Trump markaa wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan la kulmo Mujtaba Khamenei Ali Khamenei wiilkiisa rabaa inaan la kulmo ninkii buu amaan la dul istaagay waxaan ku hayaa macluumaad iyo warbixin arinta ku saabsan iyana iyo guud ahaan xaaladda Mareykanka Iran iyo waradii ugu dambeeyay qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku heenayna waxaa kamida xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Marco Rubio ayaa ka jawaabi waayay su'aal uu weydiiyay mid kamida senatarada dalka Mareykanka oo ku saabsan in Marco Rubio maadaama uu yahay xogayihi arrimaha dibadda macnaheedu ay tahay in wax badan kala socdo siyaasadda arrimaha dibadda waxa la weydiiyay in madaxweyne Donald Trump uu ku wargeliyay waxa ka dhalan karo haddii Iran la weeraro ka hor inta uusan weerarka qaadin Mareykanka haddaba jawaabta Marco Rubio iyo meeshaas buuq ka dhacay ayaa kula wadaagaya Mareykanka xaaladda ku adag meel ay uga baxaan bay garan laayeen dagaalka Iran qodobka ugu dambeeyana Kuwait ayaa faahfaahin iyo warbixin waxa ay ka soo diyaarisay ama ay ka sameysay weerarkii lagu qaaday iyo sidoo u dhacay weerarka iyo inta nooc ay weerarka oo lagu qaaday oo si yaab leh Kuwait ay soo bandhigtay qodobada ay kuwa kale ayaan idinku haynaa barnaamijkii halkan waa ka Somali Media magaalada Muqdisho maanta muddo dheer kadib waxa ka dhacay dagaalkii ugu horeeyay ee nuuciisa inkastoo dagaalka uusan guud ahaan magaalada ku faafin haddana waxaa la arkay qaar kamida dadka magaalada Muqdisho oo ka dhuumanaya oo ka cararaya ka qaxaya iyo qaar xitaa dagaalka uu ku qabsaday wadada bartamaheeda waayay meel ay ku gabadaan oo ku qayliyay xitaa ma garanayna meel aan galno meel aan ku dhuumana ma naqaano waqti dheer kadib dadka Muqdisho oo ku mashquulsanaa horumar isbedel dhinac walba arrimaha bulshada amniga maantay waxay la kulmeen arintan haddaba dagaalkii ugu dhaxaya intaanan macluumaad kale u gudbin iyo qaar kamida codadka dadka xabadda ka gambanayay iyo dhibaatada ay la kulmeen iyo mushkilada saacadahan kooban dadka ay la kulmeen maxaa dhacay horta shalay ilaa iyo xalay mucaaradka dawladda federaalka ka soo horjeeda oo ay hogaaminayaan Sheekh Shariif madaxweynihii hore ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre iyo qaar kale ayaa qaybo kamida magaalada Muqdisho meelihii ay deganayeen iyo meelihii ay u gureen oo ay kamid tahay Barmuda degmada Howlwadaag iyo meelo kale ay xirteen ilaa ay liido qof walba meesha uu joogay ayuu xirtay ugu dambeyn maanta waxa dhacay isku dhac ciidamadii Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya iyo dawladda federaalka goobaha uu dagaalka saameeyay ama uu gaaray waxa kamida Siigaale dabka Barmuda degmada Howlwadaag guud ahaan qaybo badan oo kamida ayuu dagaalka saameeyay wali dhaawaca iyo dhimasho sax ah ama xog dhaba lama hayo dhinaca qasaaraha nafeed ee dagaalku u geystay laakiin waxaan shaki ku jirin saacadahaas yar ama xilligaas koobnaa ee dagaalku socday inkastoo hadda la kala dhaxgalay ee la joojiyay dagaalku hakaday haddana in saameyn uu ku yeeshay guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho bal ila daaba qaar kamida dadkii dagaalka dariiqa uu ku qabsaday gudaha magaalada Muqdisho iyo halista dagaalkan uu leeyahay mar walba uu dagaal uu dhaco magaalada uu ka dhaco أضر ماسك صالح يسوى صقر أنا أقول ما له وسعتها هذا قولا صبعة dadkii xabadii isku sheegayaan qaar waxay leeyihiin waa ka qabanay soo soco qaar kale waxay leeyihiin war oday meesha ka leexo marka kan asaga xabadda meesha u socota asaga u sheeg ana dadkii xitaa expert waxay ku noqdeen dagaalka xabadihii wiiftada meesha ay kugu iimaaneen ana ilaa iyo dabka iyo magaaladii oo dhanba meelihii magaalada Faras magaaladeeda ahaa ayaa qalqal geliyay marka maxaa la isku haystaa labada dhinacba wax kale la isku ma haysto
kursiga kama kacay iyo kursiga anaa rabe iiga kac iyo kaagama kacay qof dan umadeed u dagaalama ma jirto kan dagaalamaya qoriga qaatay dhalinyaro adeegsanayo caawa dagaalka muqdisho ka dhaliyo wuxuu rabaa inuu madaxweyne noqdo kan ka kacla leeyahay wuxuu rabaa inuu kursiga ku fadhiyo laakiin dadka magaalada muqdisho naftooda xoolahooda amnigooda wixii oo dhan baa meesha lagu dayacaya ana waa arrin qatarteeda leh halisteeda leh magaalada sidan u dhismayso horumarkan uu ka socdo midna waa xaqiiqo marka aad dadka magaalada muqdisho la sheekaysato oo la fariisato ma rabaan dagaal dadku dagaal ma rabaan dadku waxay rabaan amni dadku waxay rabaan horumar magaaladan dad ba aad u maalgashtay dadna waxay rabaan inay ku ciyaaraan waayahay saaxiibada qiimiga lahow intaa waxaynu uga gudbaynaa xaaladda magaalada muqdisho qof walba u soo duceeyo in ilaahay magaaladan iyo dadkeeda ilaahay amnigeeda iyo xasiloonideeda inuu u siyaadiyo u badbaadiyo waayahay qodobka ku saabsan madaxweyne Donald Trump ee sida weyn loo hadal haya Trump waxa uu leeyahay waxa la weydiiyay in uu rabo inuu la kulmo hogaamiyaha dalka Iran Mujtaba Khamenei waxa uu yiri Mujtaba waxa uu ku sheegay inuu yahay nin fahmad leh waxa uu ku sheegay inuu yahay hogaamiye la jecel yahay waxa uu yiri waan jeclahay inaan mar la kulmo aad baan u rabaa inaan la kulmo buu yiri waxa sidoo kale Trump uu sheegay in hogaamiyahaasi waa hogaamiyaha dalka Iran ee cusub aabihii ay Mareykanka duqeynta Israa'iil iyo Mareykan ay ku sameeyeen Iran ku dhintay waxa uu leeyahay Trump waa jeclaan lahaa inaan la kulmiyo hogaamiyaha sare waa dadka aad bay u ixtiraamaan waa la jecel yahay Trump waxa uu la hadlayay waraysi uu siinayay warbaahinta New York Post wuxuu xaqiijiyay in hogaamiyaha sare ee Iran Mujtaba Khamenei uu ku lug leeyahay wada hadallada lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka isla markaana ay labada dhinac u muuqdaan kuwa si wanaagsan isu fahmay haddaba Trump waxa uu leeyahay wuu ku lug leeyahay su'aashii la weydiiyay ma ku lug leeyahay baa leeyahay buu yiri shaki kuma jiro waxaan u malaynayaa in dad badan ay arrintaasi ku weyntahay wuxuu sidoo kale sheegay inuu jeclaan lahaa in ay mar is arkaan waa kana qayb kamid ah hadalkii Donald Trump ee ku saabsanaa hogaamiyaha dalka Iran. So who's making the decisions? Well, they say he is giving approval because that's the way it has been for a long time. His father and then him, I guess it's a succession. But we seem to be getting along quite well. Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person? I've never thought of it, actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him. I like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point. Depending on how Trump waxa uu yiri markii hore aabihiisa haystay hadda isaga la wareegay iyaga kala wareegay wuxuu yiri maaragtay waan aad baan ma jeceshahay in la kulanto waligay kama fakirin buu dhahay laakiin mar uun waan la kulmi doonaa waxa uu ka bilaabay aniga isaga aad baan isu fahmaynaa buu dhahay ilaa iyo hadda intay wada hadaladii howlaha socdeen aad baan isula jaan qaadnay waxana Trump sheekadii Netanyahu iyo dagaalkii Iran iyo dhanba wuxuu leeyahay waana dabeecad lagu yaqaan bay leeyihiin dadka Trump iyo arrimaha Mareykanka aad uga hadlo Trump qofkii uu arko inay ismari la yihiin oo uu arko inuu geesi yahay hadda generaalkan maarta ugu sareeya dalka Pakistan Asim Munir aad buu u jecel yahay saaxiib yihiin wuxuu ku jeclaa dagaalka India sidoo India iskaga celiyo Trump da iska celiso uu ku ixtiraamaya bay dhahan dadka aad ku yaqaan laakiin Trump nin jecel iyo qof daba socda iyo ma ixtiraam waa caaya waa u gafaa hadda carabtu xulay intaasan ka qaadaya way bixinayaan iyaga dhisay iyaga yeelay u bahdilay hadda heer wuxuu marayaa u hogaamiyihii Iran nin la jecel yahay waa ninkaas waa la kulmaya waa nin aad runtii aan isla jaan qaadeen aawe marka dagaalkii wixii dhibaato waa yahay saaxiibada qiimiga loo qodobka meesha markaynu uga gudubno xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Marco Rubio ayaa waxa la weydiiyay su'aal ku saabsanayd maadaama uu yahay xogayaha arrimaha dibadda in uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump koor dagaalka inta lagu qaadin Iran in uu la wadaagay ama uu ka digay inuu Trump u digay did you warn Trump before the war dagaalka koor Trump u digtay war ma dhahday madaxweyne arintan cawaaqibkana ka dhalan kara natiijadana ka dhalan karta diyaan Iran weerarno ma ku tiri su'aasha markii waxay u baahan tahay laba leh yes ama no laakiin siyaasiyiinta maxay sameeyaan su'aal toos ah la weydiinaya intuu ka soo wareeganaya madaxweynaha uu ogaa dawladda way ogeyd waa laga warqabay inay ka dhalan karto waxa ka dhalan karo waa assessment ya qiimeena waxa soo dhan kuma weydiin baa leeyahay madaxweynaha ma u digtay
ama uma degin ka hor dagaalka natiijada ka dhalan karto haddii Iiraan la dagaalo waaba kana carra ka jawaab ilaa uu xanaaq u dhaw su'aal yes iyo no kama jawaabi ka jawaab baa leeyahay waqtigiina iska leh ila sanatarada daqiiqada haystaan daqiiqadaas waxay ku weydiinayaan wasiirkii xogayihii siyaasigii loo keeno ama cidii loo keenay su'aalaha weydiinayaan daqiiqadu leeyahay sanatar walba xildhibaan walba marka ninkan wuxuu rabaa inuu daqiiqadiis ilaashto ninkan wuxuu rabaa inuu ka dhameeyo baleedadaa waxa kala qabsaday. Did you warn President Trump before the war in Iran began that this conflict would drive up cost on gas, food, travel, and shipment? Yeah, I'll warn you right now. I don't do yes or no answers. Yeah, So well, these I are only have complex 5 questions. minutes. I know when Well, you so was do a I. senator, you know I about never this did yes or business, no answers and I to know you're people. trying to go out so that you can run out my 5 minutes. That's a simple I'm not question. run out your 5 minutes. You're running out your 5 minutes. Did you- I don't do yes or no question. You want to ask me a question? I'll answer I'm your answering. question. You answer my question. It's my time. Did you? Did I what? Yes or no? Did you warn President Trump The before president was the fully- Iran okay. war began that this conflict would drive up cost on gas, food, travel, and shit? The president, Yes or no? The president and the full administration was aware that there would be consequences to action, but the consequences Let of me Iran move having on. a nuclear weapon were worse. Did you warn him? Did you warn him that launching a war in Iran could result in the regime placing a chokehold on the Strait of Hormuz? All the risk factors were understood, but the wasiirkii ama xogayihii arrimaha dibadda ayaa su'aal fudud ka jawaabi lahaa waxaa lagu celcelinaa oo la leeyahay war ma uga digtay Iran before we launch war on Iran did you warn the president madaxweynaha ma u digtay before we will launch waa in la qaado ama weerar la aado before we launch a war did you warn to the president madaxweynaha ma u digtay wuxuu leeyahay Aaron answer yes or no question ma ka jawaabi kulaha su'aal ha iyo maya ah macnaha waxa la weydiinaa waa wax sahlan haddii u digay marka meeshan waxaa ka cad dagaalkan in la galay qorshe la'aan Maraykankana uu faraha la galay wax uusan aqoonin ilaan wax aadan aqoon hadaa gashid meel aad ka baxday ma garan kartid moogtahay dagaalka waxay dhahan in la bilaabo waa fududahay in laga exit strategy mar walba adag ayaa war ka soo saartay weerarkii saakay ay ku qaaday Iran dalkeeda wasaaradda difaaca Kuwait war saxaafadeed ay wax yar ka hor soo saartay waxa lagu faahfaahiyay weeraradii xalay iyo horaantii maanta ay Kuwait kala kulantay Iran iyadoo war saxaafadeed ku sheegay inay Iran ku weerartay dhulka Kuwait 13 gantaal oo plastic missile ah iyo 17 diyaaradood oo nooca duuliyaha aan lahayn Kuwait waxay sheegtay in gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn inta badan laga hortagay balse weerarka u dhaliyay dhimashada qof u dhashay Hindiya mar walba weerarada waxa ku dhintay qof Hindiya ama qof Bangladesh ama qof Pakistani dadkan ayaga inta badan ka shaqeysta dalalka khaliijka shaqaale ka marka Iran iyo Mareykan dhexdooda waxa ku dhimanaya Hindi iyo Pakistan iyo Bangladesh waxay sidoo kale sheegtay Kuwait burbur gaaray qaybo kamida garoonka diyaaradaha ugu weyn ee Kuwait International Airport muuqaalka aad aragtaan ama idiin muuqdo waa burburka dhismayaal iyo kaabayaal kale Iran weerarada ay qaaday saacadihii ugu dambeeyay oo ka dhacay Kuwait Bahrain waqooyiga dalka Iraq dhammaan weeraradaas ka xilligii iyo xilliyadii u dambeeyay aroortii markuu waaga bariyay ay qaaday dalka Iran ama ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iran ay ku qaadeen dalalkaas waxay ku sheegtay Iran kuwa looga jawaabay weerar uu Mareykanka la beegsaday markab shidaal oo ay Iran lahayd iyo xarun isgaarsiin oo ku taalay jasiiradda Khashim waxaana lagu sheegay war saxaafadeed ay sii deysay Iran in la beegsaday saldhigyo Mareykan ku leeyahay iyo kaabayaal kale oo la xiriira dhammaan Mareykanka danihiisa gobolka garoonka diyaaradaha ugu weyn Kuwait ayaa la arkay burbur weyn oo gaaray inta ay socdeen ama ay socotay kormeer uu garoonka wax yar ka hor ku tagay galabta wasiirka gudaha dalkaasi ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka Kuwait Sheikh Fahad al-Sabah isagoo goobta ka sheegay in weerarka xalay iyo saakay dhacay uu yahay mid si ku talagal ah ay Iran ku fulisay si ay u curyaamiso kaabayaasha dhaqaalaha dalka Kuwait Iran horay waxay uga digtay dalalka khaliijka haddii aysan saldhigyada Mareykanka dalalkooda ku yaala ay iska qaadin ay Iran xaq u leedahay inay beegsato dhammaan
saldhigyada Mareykanku uu ku leeyahay dalalka Khaliijka. Kuwaitna waxa ay ka mid tahay meelaha saldhigyada Mareykanku uu ku yaalo waliba goobaha ugu muhiimsan maraan markii ugu horeysay ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iran ay beegsadaan Kuwait. waayahay walalahay saaxiibada qiimiga leh inkastoo xiisada Mareykanka iyo Iran ay hadda taagan tahay in labada dhinac weerar goosgoos ay isdhaafsanayaan, haddana wararka ka imanaya dhanka Mareykanka waxa ay sheegayaan wali aqalka cad waxa ay rajo ka qabaan in wadahadalada ay natiijo yeelanayaan oo ay soconayaan oo aan wali laga quusanin. barnaamijkeeni habeenimo oo aad kala socotaan Kow Somali Media guud ahaan waa inaga inta caawa tan iyo kulanti dambe nabadgelyada Ilaahay dushiina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi